beesha shanaad tobanka kale faa'iido ay u leedahay marka hore dadku waa islaam waxa lagu xalaaleeyay oo guriga looga jaray madiil beesha shanaad baa samaysay waxa lagu xalaaleeyay oo waxay ku qashaan waxna ku cunaan midi beesha shanaad baa samaysay waxay haddii ku xoroobeen oo ku fashaan kuna ootaan masaar beesha shanaad baa samaysay waxa ay haddii ilaahay maayo ku dagaalamaan oo isku xoreeyeen mariid beesha shanaad baa samaysay waxa ay ku toshaan oo haamanka lagu tolaa mudac asagaa u yar beesha shanaad baa samaysay walaalayaal intaas intii kale oo aan soo koobi karin bay horta beesha samaysay amaal bay u heleen carabka inay ku dishaan wadana ku dhixdaan koob iyo tobanka beelood waxaan leeyahay beesha shanaad ka daayeen midabta koorka iyo carabka ay ku liidaan iyo cuud ay ku riixaan beesha shanaadna waxaan leeyahay dhib badan baa dalka ka dhacay walaalihii ilfso ma nasan dhibaatooyin badan aan soo gudboonaaday iska cafiya adinkuna anigoo suldaanka beesha shanaada marka hore waa idin cafiya cafal iyo masaabax warheedha horta koo waxaan idinku baraarujinayaa nafteydana ku baraarujinayaa cafinta waxaa ka horeyso waxaan u soconno inaan ognahay meeshaan u soconno maxaa waaye ma ahan walaalkay inaan cafin waaye walaalkay inaan cafiye qasab ay igu tahay meeshaan u socdo waxaa waaye inaan meeshaan joogo ka kaco waaye waxaan uga kici karaa anoo garab hela anagoo isgarabsana dad cunfi iyo cuqdad iyo sid iyo liidid iyo bakti ku dhex jirana ma laga yaabo inay hiigsigooda nolosha gaaraan waxa weeye marka lafdigaas yacni halays cafiye ah oo wixii la kala gala halaysu dhaafa ah ama dhiig buu noqon karaa ama dheh hunboo laysdhahayay noqon kartaa ama xoolo bay noqon kartaa ama wax kale bay noqon kartaa wax kastoo laysu geystay oo xumi ah in maalanba qofkii kuu geysta aad iska cafiso ilaahayna aad dawaab ka dalabto adigoo ajar raadinahaya inaad arrintaas samayso ayaa wanaagsan taasna waa isku boorinaynaa waa marka munaasabad markii la fiiriyo macruufkiiyo lays amraya munkarkiiyo layska reebahaya waayo gurgurudka ama xaqdiga waxaasoo dhan waa xumida layska reebo in qofkii faraxsanaado wanaagga uu ku farxo walaalkii uu farax geliyo waxa weeye waxay ka mid tahay macruufkay ka mid tahay la isfaray